assalaamu calaykum. halkani waa kanaalka daruuraha. waxaad ku soo dhowaataan muuqaal cusub. mowduuceenna maanta waxaynu kaga hadli doonnaa mid ka mid a caqabadaha hortaagan in ay Soomaaliya mar kale cagaheeda ku istaagto, isku filnaato amni ahaan iyo ciidan ahaan. waana howlgalka taakulaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM iyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS. dabcan wax waliba oo horumar ah waxay ka go'daa oo samayn kara Soomaaliya, laakiin markaan leenahay caqabad ayay ku yihiin, waxaan ula jeednaa in aysan ka go'nayn in ururadaasi ay ka shaqeeyaan maslaxada iyo danta Soomaaliyeed. sababtoo ah haddii ay wax waliba ku hagaajiyaan, waxaa soo gabagaboobaya mashruucii iyo mandatekii ay ku joogeen Soomaaliya. xarunta xalane ee magaalada Muqdisho waa mid la mid ah halka lagu magacaabo aagga cagaaran ee Baghdad ee caasimadda Ciraaq, halkaas oo ay degan yihiin diblomaasiyiinta ajnabiga ah, safaaradaha iyo qunsuliyadaha, iyadoo lagu tilmaamo bu'da caqabadda ku ah waddanka Ciraaq oo ay u dheer yihiin siyaasiyiin calooshood u shaqaystayaal ah. sidaas oo kale Soomaaliyana xerada xalane waa halka sida dadban looga arrimiyo guud ahaan Soomaaliya oo lagala socdo dhaqdhaqaaqyada dalkeenna oo idil, haddii ay ahaan lahayd sirdoon, qorshayaasha dowladda iyo waxa ay damacsan tahay cid waliba oo dan ka leh Soomaaliya. xalane waxaa deggan hay-ado NGO-yaal ah oo u badan kuwo hoos taga qaramada midoobay, safaaradaha reer galbeedka iyo weliba AMISOM. waa meel aan cidina la xisaabtami karin, dowlad Soomaaliyeedna aysan la socon karin dhaqdhaqaaqooda. shaqaalaha iyo madaxda halkaa ku xaraysanna waa kuwo takhriir iyo warbixinno qaldan mar waliba ka gudbiya Soomaaliya si mashaariicdoodu ay ugu sii socoto. tusaale, hay-addii abaaraha u qaabilsanayd waxay bil waliba diyaarinaysaa warbixinno hor leh oo tilmaamaya in malaayiin shacab Soomaaliyeed ahi ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah, haddii aan lala gaarinna ay macluul u go'ayaan, waxaana bajedkaasi lagu jaangooynayaa ilaa dhowr milyan oo dollarka Maraykanka ah. kii halisaha ku soo fooda leh Soomaaliya wax ka diyaarin jirayna wuxuu xariiqayaa in musiibooyin iyo dhul la'eg ay ku soo wajahan yihiin dalka. warbixin kasta oo positive ah oo ay Soomaaliya u dirto qaramada midoobay ama midowga Afrika, waxaa kooxda xalana deggan ay ka daba diraan boqolaalo waraaqa ah oo negative ah oo ay ku muujinayaan in hal xabbo uusan u qabsoomin dowladda Soomaaliya inay sii liidato mooye. xalane waa xaruntii gudaheeda lagu dhex dilay allaha u naxariistee Almaas Elman oo kiiskeedii oo weli madmadow badani ku jira la xiray. sidee loo ogaan waayey qof lagu dhex dilay xarunta aadka loo waardiyeeyo oo kaamirooyin iyo wax waliba leh oo ay dhex deggan yihiin reer galbeed, Afrikaan, Aasiyaan iyo weliba Carab? haddii aan u soo laabanno dulucda barnaamijkeenna, arrinta tilmaamaysa in reer xalane aysan marnaba ka shaqaynaynin danta Soomaaliyeed waxay tahay inay diideen inay shaqaaleeyaan shaqaale Soomaaliyeed. shuruudaha shaqaalaha ay qortaanna waa ka mamnuuc qof Soomaali ah, taasoo macnaheedu yahay in haddii ay u baahdaan caawiye raashinkariye ah, xitaa ay ka doontaan dalalka deriska la ah Soomaaliya sida Kenya, Uganda iyo Itoobiya. toddobaadkiiba 2 ilaa 3 jeer waxaa xarunta xalane u soo dega duulimaad kaargo ah oo sida ilaa 22 tan oo isugu jira waxyaabaha ay u baahan yihiin sida qudaarta, cambaha, mooska, karootada, basasha, yaanyada, qumbaha iyo wixii la halmaala. sidoo kale waxaa kaargowgooda joogtada ah ka mida kafeega, caleenta shaaxa, sonkorta, cabitaanada soodhooyinka ee aashitada leh iyo khamriga. waxaan ka marnayn hilibka iyo kalluunka. Normally we can carry up to 22 tons of cargo. General cargo like this machinery, equipment, we have fruits and vegetables. I can actually see their carrots, mango through the little hole in the boxes. xitaa xaasidnimadu waxay maraysaa in lacag ay ahayd in Soomaaliya ay ku celiyaan ay wax kaga soo iibsadaan Kenya iyo Uganda, taasoo ah mid tilmaamaysa in reer xalane ay meesha u joogaan ganacsi. How often you do this milk run sending supply to Somalia? It depends on how many flights we have. Mostly we have 2 to 3 flights every week. These are fish and some meat. We have meat here. Oh, the meat in the cooler. Yeah. Really? Is this for the United Nations? Yeah, UN and some of the camps or NGOs in Somalia. Soomaaliya oo badda ugu dheer Afrika leh, isla markaana ay xalane ka degan yihiin dhanka badda ku teedsan oo ay siday doonaan uga kalluumaysan karaan ama ganacsatada Soomaaliyeed uga dalban karaan intii ay doonaan inay kalluun ka keensadaan Kenya iyo Uganda, waa arrin runtii aad looga xumaado. waxaan xusuustaa mar ay xalane doonayeen shaqaale xirfadlayaal ah ayaa waxaa shuruudaha dadka ay doonayeen ku jiray in uusan ahayn Soomaali. waa su'aale, siday ku diidi karaan shaqaale Soomaaliyeed iyagoo ka howlgalaya ciidda Soomaaliyeed? canshuur ma laga qaadaa xerada xalane
waa arrin kale oo u baahan inay ka jawaabto dowladda Soomaaliya. Waxaa la ii sheegay in dhammaan hoteelada, shaqaalaha iyo ciidamada AMISOM ee xerada Xalane inay qashinka iyo saxarada musqulahooda ay si toos ah ugu shubaan dhanka badda ee Xalane. Waxaa kaloo jira warbixino kale oo lagu kalsoonaan karo oo caddaynaya in isbitaalada ku dhex yaalla xerada Xalane aysan gebi ahaanba qashinkooda sida faashadaha, cirbadaha, faleembooyinka, dhalooyinka, daawada la isticmaalo iyo agabka bukaanada oo dhan aysan asturin oo ay si toos ugu shubaan dhanka badda ee Xalane, iyagoo awoodi kara inay godad u qodaan dabadeedna gubaan, ama ay si kale dhalooyinka iyo qalabka kale ee caafimaadka uga faa'iidaystaan qaab recycling ah oo dib u warshadayn ah. Dhanka kale, wasaqaynta badda ee dhanka xerada Xalane waa midda sababta u ah in xeebta Liida ay habeen walba soo tufto meydadka kalluunka faraha badan iyo xayawaanada kale. Qashin u badan mariyo, caagaga faleembooyinka, cirbado, gasacado, walxa baca ku jira oo isku guntan oo dufan badan iyo qashin kaloo fara badan, kuwaasoo gebi ahaanba xeebtii Liida ka dhigay goob qashin qub ah oo halisteeda leh. Lagana yaabo in qashinka iyo wasaqda xerada Xalane sida joogtada ah uga yimaada ay meelo kale ku soo caariyaan. Waxaa jirtay xilligii Allaha u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Engineer Yariso in maamulka gobolka Banaadir ay dhowr jeer madaxda AMISOM iyo UN-ka Soomaaliya kala hadleen una qoreen warqado digniin ah oo arrintan ku saabsan, hase yeeshee aysan jirin cid dheg jalaq u siisay. Maamulka gobolka Banaadir oo ka daalay inuu xiriir la sameeyo xerada Xalane ayaa waxa kaliya oo ay awoodaan ay tahay inay warqado u qoraan xerada Xalane oo dhibaato weyn oo dhanka wasaqaynta deegaanka ah ku haysa xeebaha caasimadda. Isku soo wada duubo, faa'iidada iyo khasaaraha ay Soomaaliya ku qabto xerada Xalane waxaa badan khasaaraha, waana sababta raggan kibray ee 12 bilood ee sanadka ku qoraxaysanaya Soomaaliya ay mar waliba warbixino qaldan ugu gudbiyaan qaramada midoobay, kadibna loo sii dheeraynayo mandate-ka joogitaanka ciidamada AMISOM iyo howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Sababtoo ah sidaan horey u sheegnayba, mar waliba riboodka ay dirto dowladda Soomaaliya waxaa ka awood badan midka ka soo baxaya ragga qaramada midoobay u jooga gudaha Soomaaliya iyo xafiiska wakiilka gaarka ah ee ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Swan. The progress in Somalia requires a long-term commitment to governance, justice, respect for human rights,